kuwani waa aragtida qaar ka mid ah bulshada oo ka fikrad diibanayay in xilligan uu fanaan Soomaaliyeed ka baxay diinta Islaamka sabab la xiriirta in heestiisa laga dhex maqlay astaanta iyo magaca dadka caabuda shaydaanka. Subxaanallah. sheekada ugu weyn ee saameynta la ayaa ah fadeexada iyo eedeynta ka bixitaanka diinta Islaamka fanaanka caanka ah ee Qamar Suugaani oo ka mid ah fanaaniinta loogu jecel yahay Soomaalida. fiidiyoga ama heesta badanaa baraha bulshada la soo dhigayo waxay ahayd heesan anigu codkeeda duubay. sababta ay ku timid eedeyntaasi ah inuu diinta ka baxay sirta ka shiftay sirta noloshiisa. imise ciyaartooy, agtaro, fanaaniin iyo madax caana ayaa qaatay diinta lagu caabudo shaydaanka ee maasooniyadda iyo dabinka uu ku dhacay Qamar Suugaani. maxay tahay diintiisa dhabta ah? si aad su'aalaha jawaabahaas u hesho waxaan ku xasuusinaynaa daawade inay muhiim inoo tahay inaad muuqaalkan like saarto si muuqaalku saaxiibo badan u gaaro una share garay asxaabtaada kale ee Facebook. aragtidaada ku soo qor qaybta hoose ee commentiga. waadna ku mahadsantahay la jaanqaadkaaga iyo taageeradaada. waxaa baraha bulshada gilgilay oo fadeexad weyn noqotay in fanaanka Soomaaliyeed ee Qamar Suugaani uu yahay qof ka baxay diinta Islaamka kaasi oo shaydaanka caabuda. waxaana dadka ku doodaya arrimahaasi ay soo bandhigeen cadeymo aan la qarin karin oo maqal iyo sawirba ah. waxaa jirta laba sabab oo waaweyn. midda koowaad, habjiriinka calaamadda maasooniyadda ee hadda kuu muuqata taasi oo kicisa waxyaabo badan oo aysan dadku ku baraarugsanayn. midda labaad waa in heestii u qaaday gabadha caanka ka ah baraha bulshada ee Maryan Axmedey laga dhex maqlay cod tilmaamaya diinta maasooniyadda ee Illuminati. bal tiro 2 jeer aynu wada dhagaysanno codka aadka u hooseeya ee lagu leeyahay laga yaabay inaadan weli maqlin codka aan kuu sheegayo hadda, balse markaad dib ugu laabato heestii Qamar Suugaani uu u qaaday Maryan Axmedey marka aad marayso inta u dhaxaysa 4 daqiiqo iyo 4 sekin ilaa laga gaaro 4 daqiiqo iyo 7 sekin waxaad maqli kartaa dhawaq hoose oo tilmaamaya taasi oo ah magaca diinta maasooniyadda. waxaana shirkiga diintaasi ka soo dhex muuqda qaar ka mid ah siyaasiyiinta, xidigaha, agtarada iyo fanaaniinta caanka ka ah caalamka. maadaama qofka shaydaanka caabuda ee ku biira qoomkaasi laga saacidayay inuu caan noqdo haddii ay ahaan lahayd qarash iyo taakulo dhan kastaba. waxay daha gadaashiisa ka xukumaan waddamada caalamka. waa kuwa wax walba ku bixiyey in luqadda Ingiriiska ay noqoto luqadda keliya ee laysku fahmi kara caalamka oo dhan si ay fariintooda u gudbiyaan. waxa ay maalgeliyaan tartamada noocyadooda kala duwan iyo xidigaha kubadda cagta ee caanka ah. waxaanay isticmaalaan sixir xaddaaf ah kaasi oo qofka wax walba uu doonayo la isku dayo in si sixira lagu siiyo. bal aan kuu yara bidhaamiyo shakhsiyaadka diinta maasooniyadda haysta ee dunida caanka ka ah ee isugu jira xidiga sportis, madax iyo fanaaniin. magacyadaasi waxaa ka mid ah Michael Jackson, Bob Marley, Barack Obama, Justin Bieber, Lady Gaga oo ah fanaanad, Kanye West, Rihanna oo aad badankiin aad u wada garanaysaan, LeBron James iyo shakhsiyaad kale oo caan ka dhiga shaydaanka waa siday aaminsan yihiin ama ay aaminsanaayeen shakhsiyaadka aan ka soo hadalnay. Qamar Suugaani hadalhaynta baraha bulshada waxay ku qasabtay inuu muuqaal kooban soo duubo isagoo shahaadanaya isla markaana qiraya inuusan diinta ka bixin. inaan cadeeyo inaan ahay qof islaam ah oo Ilaahay iyo nabigiisa Muhammad bajal Allahumma salli wa sallim alayhi ashhadu an laa ilaaha illa huwa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. sawirku kaliya wuxuu iga ahaa xirimaad ama style aan ku arkay sawirada social media lagu isticmaalo. dadna sidaa darteed anana iska samaystay oo sidii unana u xirtay. sida iska cad waxaa muuqata in Qamar Suugaani uu qirtay inuusan aqoon ahaan fahansanayn waxa ay tahay micnaha iyo sirta ku jirta habjiriinkiisa, balse kaliya ay ka ahayd inuu habjiriinkiisa qurxiyo. maxaase kulmiyey sumadda habjiriinka timihiisa iyo dhawaaqa isxiga ee dhammaanteen hurdadii naga kiciyey? kuwaasi waa su'aalaha sida weyn la isku weydiin karo. fiidiyoga ama heesta badanaa baraha bulshada la soo dhigayo waxay ahayd heesan anigu codkeeda duubay, laakiin anigu codka aan duubay kuma jirin codkani.
aqoonna ereygan uma lahayn yeela waxaan leeyahay diinta lagu ciyaaray ashhadu an laa ilaaha illa khalaas ma jirto sabab aynu badankan uga shakinno diinta qof muslim ah oo qiraya shahaadka sidoo kalena tilmaamaya in gafafkaas yar uu gale ay ahaayeen mid ay aqoon darro u geysay sidaa darteed waa inaan dhammaanteen niyaddeenna ka saarno wax kasta shakiga qamar suugaani iyo diinta islaamka qoraaxdeeda ugu dambaysana waxay leedahay mar walba qofka ku xugmi waxuu afkiisa ka sheego adigoo aan iska dhigaynin inaad og tahay waxa qalbigiisa ku jira haddii ilaa ay dhammaadkaad nala joogtay waxaan ku xasuusinaynaa daawade haddii aad hilmaamtay inay muhiim tahay inaad muuqaalkan laag saarto si muuqaalka uu saaxiibo badan u gaaro una sheergaray asxaabtaada kale ee Facebook magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafiinho aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.